أهلا وسهلا سودو مريانتي سودو وفريسو markii aad la soo hadashay waxaan ku moodayay gabadh weyn maasha Allah laakiin gabadh yar baad tahayba mar labaad oo kugu soo dhaweynay barnaamijka mahadsanid mudane adigu waxaad leedahay laba hablood Jana iyo Mina ilaahay ku dayo inanteeda jirnay waa 6 jir inanteeda kalena waa 4 jir maxaad qabataa adigu ana waxaan ahay gabadh guri jooga Najwa qisadeedu waxay tahay iyadii ninkeedu horan ka wada hadda laakiin waa gabadh la soo furay ninkeeda Xamaada ayaa la yiraahdaa way isqabeen muddo gaaraysa 12 sano 12 sano miya ha 12 sano 12 sano ayay isqabeen ninkeeda Xamaada wuxuu ku maqnaa wadamada Carabta gaar ahaan Imaaraadka xaggaas aanu ka shaqeynay iyaduna wadanka Masar ayay ku nooleed guri ayay iibsatay iyo dahab iyo waxyaalo kale fara badan lacagtaas oo dhan waxa soo diri jiray ninkeeda Xamaada oo ku soo daalay kuna soo dhididay oo dalka dibadiisa ku noolaa kadib 12 sano kadib ninkeedii wuxuu ku soo noqday wadankii Masar ehelkoodu waxay ku yiraahdeen gabadhaadii waxay ka dalbatay furniin maxay ahayd sababtay u dalbatay furniinka waxa la weydiiyay maxaad isku furaysaan ma dagaal baa dhex maray labadiina Najwa wax jawaab ma soo gudbin bax way dhaaf Petri albaabkaana ka soo xiratay guriga sababtoo ah iyada ay magaceeda isku qortay ninkii waa iskaga tagay kadib arinkii jaarkii ayaa soo dhex galay waxaan isku dayeen inay bal arinkan dhexdhexaadiyaan oo arinkay dejiyaan Najwa waxa isku dayday gurigeena iibiso waana iibisay dhaqaale badanna way ka sameysay muddo kadib way xanuunsatay waxay hanti lahaydna waxay ku baabaaday daweynta xanuunkeeda haddaba dib ayay u soo noqotay waxaanay rabtaa inay ninkeedii isku soo noqdaan iyo ubadkeedii aanay 3 sano arag 3 sano maxaa dhacay aniga isaga dibaataa naga dhexdhacad sabab ma u rabtaa in isku soo noqotaan ninkaagu ma waxaad weydiinaysaa sababtaan u rabaa inaan soo noqdo anigu ninkayga waan jecelahay iyo ubadkaygaba miyaad jeceshayna 3 sano aad kala maqneedeen maxaad qabatay markaa ma garanayo anaga shaydaan baa naga dhex shaqeeyay adigu maxaad heerka ula soo gaadhay ninkaaga si maxaad sababay inaad dalbato furniinka sabab ma aniga jaarkayga ayaa warariga keenay isaga anaga jaarkayga oo moodane wanaagayga ayaa sharkayga u socday jaarkiina iyaga anaga jaarkaygu jaar wanaagsan ma ahayn laakiin anigu dib baan ka ogaaday maxay idinka dhexdiina soo gelinay jaarka jaar xasad bay haayeen iyagu anaguna hanti baan iska lahayn qoys iska faraxsanna waanu hayn oo markaa jaarkaaga kugula taliyay inaad ninkaaga iska furto gurigaygu inuu dumay rabeen noloshiina ayay ka xumaayeen iyaga damac baa hayay anigee ninkaygana wayna kala geeyeen iyagana kaa baabiyey markaa adigu miyaad lahayn markaa ehel waan leeyahay ehel aabbiyo hooyo weliba way joogaan ma u sheegtay ma uga warantayna si wax u dhaceenna iyo waxay jaarkuu kugu sameeyeen maxay ka yidhahdeen markaa ma sheegin labay ahaayeen iyagu laba raga oo labada nin markaa may ku hantadeen markaa iyagu waxay damacsanaayeen hantidaan anigu haysto adigu waqtiga waa jilicsaneed waxaana kula darsay makana xanuuno sax qalliin baan galay oo hantidaadi markaa waxay ku baabaaday daaweynta naftaada oo si fiican laakiin imika anigu runtii waan xishooday bal waan la hadli doonaa maxaad ka oran lahayd markaa adigu waxaana weligii hore ugu odhan ayaan ku odhan lahaa ha soo gudbaata wax Xamaada Xamaada soo dhow Xamaada wandhawahay mudane Georgio oo kugu soo dhaweynaya barnaamijkan yoran aduu seetay Xamaada alxamdulillah aad baan u fiicanahay ma sha Allah xaaladaada guud iyo noloshaadaba dhamaanba way ku fiican yihiin Soomaa waxa laga yaabaa barnaamijkan inaad isweydiinayso muxuu yahay ma arrimo siyaasadeed lagaga hadlayaa laakiin ma aha barnaamij siyaasad lagaga hadlayo iga waran shaqadaadu aad u fiican tahay shaqa fiican baan Masar waad ku soo noqotay mise weli Masar baan deganahay Masar baan joogaa imika hadda Masar maxaad ka qabataana iminka Masar waxaan ku leeyahay dukaan weyn oo dharka ragga lagu iibiyo
keliga miyaa le maya keligii malihi anigii waalidkayba waalidkaa waa fiican yihiin soo ma way fiican yihiin aad bay fiican yihiin noloshaadu waa maasha allah yani reerkaaga way fiican oo yihiin kale horan laakiin dee reer u lahaa anigu iminka reer malihi oo hadda reer ma lihid miyaa wax caruura miyaad waan leedahay leeyahay 2 hablood midna waa 6 jir midna waa 4 jir miyaad aragtaa nabadkaaga markaa anaaba haysta ubadkaygii way ila joogaan way kula joogaan labadooda hablood waan gartay waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sababtan xaggan aan kuugu yeedhay waan isweydiinayaa anigu marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan anugu kuugu yeedhay aniga ma ahayn balse laakiin qof ayaa erge ii soo dirtay inaan adiga bartan kuugu yeedho ma doonaysa inaad ogaato shaashaddaa ka eeg haddaba allah waa tuma matanaad igu yeedheen tan haddaan moodaya wallahi inaanan imaadeen haddaan moodaya inay tan tahay agtiinna kamaan soo wareegin maxaa tan igu yeedheen xamaada ukaadi horta waa tegi doontaa inagu aan wada hadalno imaqal horta fadhiiso ma tan maana arki karayaba imaqal xamaada noloshaydii oo dhan bay ku ciyaartay tani anaad martiita horta imaqal inaan arkaba dooni maayo wejigeeda xamaada imaqalo xamaada aniga ma imaqal iga taa wallahi waan tegaya tan uma joogaye ma dhici karto anaad martida tahay soo fadhiiso inaan arkaba dooni anaad martida tahay soo fadhiiso imaqalo soo fadhiiso labadiina wada hadlaynaa waa sidee umad igaga dhaqaaqaysaa meesha markaa anigu xaqaaga inaan kuu dhiciyo ayaan doonayaa waan ogahay anigu in lagu dulmay waanan ogahay arrinkani inuu aad kugu adag yahay tani waa doqon aqalkeedii bay baabiisay ubadkeedii bay soo dayacday tani mid la arki karayaba maaha waxaasoo dhawaan dareersanay laakiin steji nin raga iska dhig oo cadhadaada xakamee warqad ayay kuu soo dirtay anaa ku akhrinayaa waanan ku akhrinayaa marka aduu go'aan ka gaadh inaad tagto iyo inaad joogto qofna kugu qasbi maayo fariintan ay kuu soo dirtay waxaa ku qoran sida tan carruurtayda aabbahoodow shayddaan ayaa inaga kala dhex shaqeeyey nolol kale ii dhalaaliyey indhahana iga tiray iguna beeray damac iyo hantiraadis waxaad ahaan jirtay qof noloshayda mar kastaba baahi tiraa anna aan mar kaste kula daba taagnaa baahi aniga iyo ubadkeenna darteed ayaad dhul shisheeye u tagtay si aad noogu soo xamaasho oo hanti aad noogu samayso dhammaanteenba waxaan ku nooleen nolol aad iyo aad u sarraysa aniguna abaalkaagii waan gabay iyo dadaalkii aad noo soo samaysayba waan ogahay inaanad adigu jeclaysanayn inaad aragto wejigayga gar baanad u leedahay laakiin aabbaha ubadkaygu dhibaatadii iyo dhabarjabkii aan ku geystayna ilaahay waa igu abaalmariyey aniga wixii dunyo aan kaa tabcadayna way iga baaba'een badanaana waxay ku baxday caafimaadkaygii iyo wax kaloo laga khiyaameeyey aniga nafirkaygaba waan khaldanahay ubadkayga aabahoodow xaqaagii ayaan ku ciyaaray weligii noloshaydana waxba adiga agtaada kamaan waayin waan ogahay inaan anigu khaldamay oo wanaaggii iyo dadaalkadii samaynaysayba aan xumaan kuugu beddelay waxaan ballan kuugu qaadayaa haddii aad fursad labaad i siiso xafidi doonana gurigayga iyo owlaaddeyda iyo ninkaygaba ii naxariiso ciilkan iyo culeyskan hayanayga dulqaad hadalkaa miyadaa soo qortay midaan qaadanaya maaha waa gartaa anigu maba doonayo gabadha inaan wejigeeda arko haddaan arko waaba dili lahaa waxaynugu soo hadalqaadin gabadhani way khaldantay waynay garatay khaladkeedii wixii idinsoo kala dhex marayna waxay noo sheegtay inay jaarkeedii ay ka dembeeyeen iyagaana ka dhex shaqeeyey oo dumarnimaaba qaadayadii 11 sanaan wada noolayn waan ogahay waanan la yaabay aniga naftirkaygu waxaa adiga lagugu sameeyena wax loo dul qaadan kara xataa ma ahayn waanunu sheegayada waxaan ku yidhi arrinkan ma qaadan karo laakiin 2 hablood ayaad leedahay ma qiyaasi karo intee in leeg baad jeceshahay gabadhan hore waan u jeclaa laakiin iminka ma arki karayo hore waad jecleed waxba kamaad hagran wax kastana waad siisay qof shisheeyaa hay khiyaamo laakiin iyada kamaan filanayn waayo waa inaabtiday ma qiyaasi karaysaa qof dhiiggaaga markuu ku khiyaameeyo oo weliba aad kuugu dhow dareemi karaa laakiin xamaada aan yaro dhegaysanayada bal in yaraan dhegaysana bal wax ku hadasho u oggolow carruurtaada darteed may wax la dhegaysta maaha daadaa
najwa horta hadashee najwa haa la hadal bal waan ku jeclahay xamaada codkaaga kor u qaad najwa si fiican u maqli mayne anigu weliba waxaan kaa raalli gelinayaa wax kastoon kugu sameeyey dadkan hortooda weliba fiicnaan lahaydaa inaynu dib isugu soo laabanno ubadkeenna dartood waa run anigu aad baan kuu jecelahay waa iska hadal waxani waan ku baryayaa walaale iska hadal waxani aniga iska kii cafi wixii qaladan kaa galay caadmi aan khaldamin ma jiraana waa runtaa ma jiro la hadal oo u sheeg oo haddaad doonto ku dheh hadalkaagani ma baqancinayo been baad ii sheegaysaa la hadal yada ku dheh haddaad doonto been baad ii sheegaysaa maanta anuu been sheegi maayo maanta ku rumaysan maayo innagu markaan isjeclayn waan isrumaysan jirnay taasi mar horey ahayd waa laga soo gudbay may anigu weli waan ku jeclahay ima jecelid qofna qofuu jecel yahay waxaad samaysoo kale kuma sameeyo lagama yaabo maya aniga waxaad igu samaysay wax xun buu ahaa ilaahay qof waxaasoo kale kugu sameeya kumaba tuso aad baan uga xumahay hadal najwa ha aamusin soo ma doonaysid ninkan inaad iscafisaan uu ku cafiye weliba la hadal haddaba ha aamusine aniga jaar xun baa i helay iyo shayddaan iyagaas u kay garabsaday iminkana jaarku wax kuu qabtaan hora jaarkii u tag waan ku baryayaa xamaada haddaan moodayo inaad halkan adigu joogto ood igu sugayso mabaan imaadeenba carruurta aynu dhalnay dartood aniga igu cafi walaal maya anigu ku cafin maayo gabadhan hadda agtaada wax qiimale kama le miyaa oo dareen uma qabtid miyaa hadalladeeda wax dareena kumay gelin miyaa horey hadalladeedu dareennii gelin jireen markaad hablahagaad aragto hooyadood ma ka fakirtaana haa waan ka fekeraa carruurtaada ma u oggolata hooyadood inay la kulmaan maya hooyadood idaa aqalkoodii dumisay sidee bay aqalkeedu u dumisaynaa sheeko dumar ayay khaldantay. dhegaysatay markay dhegaysatana gurigoodii ayay ku dumisay war gabadha way khaldantay khaladkeediina way ka soo noqotay wayna qiratay wixii gef ay kaa gashay adiga wayna la murugaysan tahay dhibkii iyo khaladkii adiga ay kaa gashay waa insaan qofka insaanka waa khaldami karaa wayna qiratay inay khaldantay ee gef kaa gashay wayna ka qoomamaynaysaa wakhtigan la joogo ubadkiinnuna xaq bay u leeyihin inay helaan aabbe iyo hooyaba insaan bay nahay iyadu maanta way waan qoomamaynaysaa arkaya laakiin anigu danka ma lihi iminka garan maayo sidaan yeeli lahaana mid aan ku weyddiiye adiga ma kula tahay inuu xidhiidhkiinii mar labaad uu soo noqon karo inaad mar labaad gurigiinnii ku noqotaan ma dhici karta arrinkaasi maya wax dhici kara maaha marka hore hantideedii ha ii soo celiso lacagtii ay iga qaadatay oo halkay ka keentaana miyaanay kuu sheegin in hantida dhan ka baaba'day inay gashay qalliin oo isku daaweysay qaarna laga dhacay weliba lacagtii markii hore waxba may xasuusan markii ay xanuunsatay ayay ilaahay xasuusatay miyaa qof walba khaladkiisa mar unbuu ka soo noqdaa iyada markii ay dhibkani ku dhacay ee xanuunsatay ayay ogaatay dee inay dembi gashay soo saas maana jawaaye haa waa haye sidaa bal adigu u sheeg haddaba la hadal adigu la hadal waa kan xamaade fursaddii u dambaysa aniga koo isii shiisheeye waan cafin lahaa laakiin adiga lagama yaabo inaan ku cafiyo bees arrintu way caddahay xamaada sheeko kuma jiro inuu go'aankaagu adeeg yahay go'aankana adunbaa iska leh cid kuu qasbi kartaa ma jirto ma waxaad iigu soo noqonaysaa inaad ubadkaadu keliya aragta maya miya iyo adigaba maya aniga ima socoto ubadkeeda u socotaa iminka ubadkayga sow aabbahood matid adigu adigaa wax walba iiga horreeye anigu in adiga kugu soo laabtaan rabaa weliba inaga wada jirnana aynu ubadkeenna u laabanno haddaan ogahay inaad meeshan joogto mabaan imaadeenba waan ku baryayaa xamaada wax walboo qalada qirtaye aniga iska kii cafi intaan ka badan xamaada anagu kuma dhibi karno
waanan dareennay wax kastana soo dhaceen oo arkaynaa gefkii ka gashay oo cad yahay khaladaadkii kugu samaysay oo dhan wuxuu dhan wada cad yihiin oo wada ognahay ujeedada hadda ka leedahayna waa mid cad inaan kala ogaanuun inaad saamaxayso iyo in kale ma lagu doonaynaa go'aankeedana adunba iskale gabadh fiican ma noqonaysaa oo carruurteeda waan noqonayaa hubaal go'aanka adiga iskale way igu adag tahay ugu adag tahay bes haddaba bes intaan ka badan inaan kugu cadaadiye ma aha waa ka xumahay anigu waa arkayaa ma awoodi karo isagii waan arkaa inaan awoodi karin mana raba intaan ka badan inaan cadaadiyo dadaalkaygii waxba kaama hagran bes hadda kalsoonidiisii ayaad burburisay wayna adag tahay inuu go'aan adag u qaato hadda wax kale ood dhahdo ma jeclaan lahayd iyada xamaada walaal fursaddii u dambaysoo nisii weliba jannaya mina dartood igu sii laakiin waxaad ogaataa joorji dartii ayaan kugu cafiyey dad aniga dartii ku cafisay waad ii sharaftay hadda waad cafisay soo maaha sababtaada ayaan u cafiyey aniga sababtaydii waad cafisay soo maaha haa waan cafiyey walmusaamax kariim hadhow toole sheekada ka dhigta haddaba waan ogahay in 2 jeer aad aniga dartay aad ku cafisay oo weliba tiri George awgii ayaanu laakiin midaan ku dhaho dhalinyaray adiga naftirkaaga jecel baa ku ay jecelka awgeed ku saamaxday nin geesiyaa tahay soo saas ma waan ogahay inaad adigu tahay qof weyn oo qalbi weyn leh oo nin fiican oo xilkasa inaad tahay gabadhan oo miskiin way khaldantay dayaan khaldamin alla baan khaldamin maasha allah runtii dhammaantayba waan ku faraxsanahay isku imaashaad isku timaadeen oo isku soo ururseen qoyskiinii oo dib aad u yegleysaan mustaqbalkiina cusub oo noloshana mid ka noqotaan oo ayaamihii aad ka soo gudubteenna
soo dhowow maryanadiya soo dhowow oo fadhiiso markii aad ila soo hadashay waxaan ku moodayay gabadh weyn maasha allah laakiin gabadh yar baa tahayba mar labaad oo kugu soo dhoweynaya barnaamijka mahadsanid mudane adigu waxaad leedahay laba hablood jana iyo mina ilaahay ku daayo inantayda tani waa 6 jir inantayda kalena waa 4 jir maxaad qabataa adigu anu waxaan ahay gabadh guri jooga najwa qisadeedu waxay tahay iyadii ninkeedu horan ka wada hadda laakiin waa gabadh la soo furay ninkeeda xamaada ayaa la yiraahdaa way isqabeen muddo gaadhaysa 11 sano 11 sano miyaa haa 11 sano 11 sano ayay isqabeen ninkeeda xamaada wuxuu ku maqnaa wadamada carabta gaar ahaan imaaraadka xaggaas aanu ka shaqaynayay iyaduna waddanka masar ayay ku nooleen guri ayay iibsatay iyo dahab iyo waxyaalo kale fara badan lacagtaasoo dhanna waxa soo diri jiray ninkeeda xamaada oona ku soo daalay kuna soo dhididay oo dalka dibaddiisa ku noolaa kadib 11 sano kadib ninkeedii wuxuu ku soo noqday waddankii masar ehelkoodu waxay ku yidhaahdeen gabadhaadii waxay kaa dalbatay furniin maxay ahayd sababtay u dalbatay furniinka waxaa la weydiiyey maxaad isku furaysaan ma dagaal baa idin dhex maray labadiina najwa wax jawaabay muu soo gudbin bax way dhaaf bay tiri albaabkaana ka soo xidhatay guriga sababtoo ah iyada ayaa magaceeda isku qortay ninkii waa iskaga tegey kadib arrinkii jaarkii ayaa soo dhex galay waxaana isku dayeen inay bal arrinkan dhexdhexaadiyaan oo arrinkay dejiyaan najwa waxay isku dayday gurigiina iibiso waana iibisay dhaqaalo badanna way ka samaysay muddo kadib way xanuunsatay waxay hanti lahaydna waxay ku baaba'day daweynta xanuunkeeda haddaba dib ayay u soo noqotay waxaanay rabtaa inay ninkeedii isku soo noqdaan iyo ubadkeedii aanay 3 sano arag 3 sano maxaa dhacay aniga iyo isaga dhibaataa naga dhex dhacad sabab meed u rabtaa inaad isku soo noqotaan adii ninkaagu ma waxaad weydiinaysaa sababtaan u raba inaan u soo noqdo anigu ninkayga waan jecelahay iyo ubadkaygaba oo miyaad jeceshayna 3 sano aad kala maqneedeen maxaad qabatay markaa ma garanayo annaga shaydaan baa naga dhex shaqeeyey adigu maxaad heerkaa ula soo gaadhay ninkaaga se maxaad sababay inaad dalbato furniinka sabab ma aniga jaarkayga ayaa warar iga keenay isaga annaga jaarkayga oon moodayna wanaaggayga ayaa sharkayga u socday jaarkiina haa iyaga annaga jaarkaygu jaar wanaagsan ma ahayn laakiin anigu dib baan ka ogaaday maxaa idinka dhexdiina soo gelinaya jaarka jaar xasad bay haayeen iyagu annaguna hanti baannu iska lahayn qoys iska faraxsanna waannu hayn oo markaa jaarkaaga kugula taliyey inaad ninkaaga iska furto haa gurigaygu inuu dumay rabeen noloshiina ayay ka xumaayeen haa iyaga damac baa hayay anigee ninkaygana wayna kala geeyeen iyagaana kaa baabi'iyey markaa haye adugu miyaad lahayn markaa ehel waan leeyahay ehel aabbiyo hooyo weliba way joogaan xaalkaaga mau sheegtay ma uga warrantayna see waxu dhaceenna haa iyo waxay jaarkuu kugu sameeyeen maxay ka yidhahdeen markaa waxba uma sheegin labay ahaayeen iyagu 2 raga oo 2 nin markaa miyay ku hantadeen markaa iyagu waxay damacsanaayeen hantidaan anigu haysto adigu wakhtiga waad jelecsaneed waxaana kula darsay makana xanuuno sax qalliin baan galay oo hantidaadii markaa waxay ku baaba'day daaweynta naftaada waa si fiican laakiin iminka anigu runtii waan xishooday bal waan la hadli doonnaa maxaad ku odhan lahayd marka adigu waxaana weligii hore ugu odhan ayaan ku odhan lahaa ha soo gudbaata wax xamaada xamaada soo dhow xamaada waan dhowahay mudane georgiyo waan kugu soo dhoweynaya barnaamijkan ii waran hadduu see tahay xamaada alxamdulilah aad baan u fiicanahay maasha allah xaaladdaada guud iyo noloshaadaba dhammaanba way ku fiican yihin soo maaha waxaa laga yaabaa barnaamijkan inaad isweydiinayso muxuu yahay ma arrimo siyaasadeeda lagaga hadlayaa laakiin maaha barnaamij siyaasad lagaga hadlayo iga waran shaqadaadu aad ma fiican tahay shaqa fiican baan masar waad ku soo noqotay mise iminka masar baan deganahay masar baan joogaa iminka hadda masar maxaad ka qabataana iminka masar waxaan ku leeyahay dukaan weyn oo dharka ragga lagu iibiyo
keliga miyaa le maya keligii malihi anigii waalidkii waalidkaa waa fiican yihiin soo ma way fiican yihiin aad bay fiican yihiin noloshaadu waa maasha allah yani reerkaaga way fiican oo yihiin kale horaan laakiin dee reer u lahaa anigu iminka reer malihi oo hadda reer ma lihid miyaa wax carruur ah miyaad waan leedahay leeyahay 2 hablood midna waa 6 jir midna waa 4 jir miyaad aragtaa nabadkaaga markaa anaaba haysta ubadkaygii way ila joogaan way kula joogaan labadooda hablood waan gartay waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sababtan xaggan aan kuugu yeedhay haa waan isweydiinayaa anigu marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan anigu kuugu yeedhay aniga ma ahayn balse laakiin qof ayaa erge ii soo dirtay inaan adiga bartan kuugu yeedho ma doonaysa inaad ogaato shaashaddaa ka eeg haddaba allah waa tuma ma tanaad igu yeedheen tan haddaan moodaya wallahi inaanad imaadeen haddaan moodaya inay tan tahay agtiinna kamaan soo wareegin maxaad tan igu yeedheen xamaada ukaadi horta waa tegi doontaa inagu aan wada hadalno imaqal horta fadhiiso ma tan maana arki karayaba imaqal xamaada noloshaydii oo dhan bay ku ciyaartay tani anaad martiita horta imaqal inaan arkaba dooni maayo wejigeeda xamaada imaqalo xamaada aniga ma imaqal iga taa wallahi waan tegaya tan uma joogaye ma dhici karto anaad martideeda tahay soo fadhiiso inaan arkaba dooni anaad martideeda tahay soo fadhiiso imaqalo soo fadhiiso labadeena wada hadlaynaa waa sidee umad igaga dhaqaaqaysaa meesha markaa anigu xaqaaga inaan kuu dhiciyo ayaan doonayaa waan ogahay anigu in lagu dulmay waanan ogahay arrinkani inuu aad kugu adag yahay tani waa doqon aqalkeedii bay baabiisay ubadkeedii bay soo dayacday tani mid la arki karayaba maaha waxaasoo dhawaan dareensanay laakiin steji nin ragga iska dhig oo cadhadaada xakamee warqad ayay kuu soo dirtay anaa ku akhrinayaa waanan ku akhrinayaa marka aduu go'aan ka gaadh inaad tagto iyo inaad joogto qofna kugu qasbi maayo fariintan ay kuu soo dirtay waxaa ku qoran sida tan carruurtayda aabbahoodow shayddaan ayaa inaga kala dhex shaqeeyey nolol kale ii dhalaaliyey indhahana iga tiray iguna beeray damac iyo hantiraadis waxaad ahaan jirtay qof noloshayda mar kastaba baahi tiraa anna aan mar kaste kula daba taagnaa baahi aniga iyo ubadkeenna darteed ayaad dhul shisheeye u tagtay si aad noogu soo xamaasho oo hanti aad noogu samayso dhammaanteenba waxaan ku nooleen nolol aad iyo aad u sarraysaa aniguna abaalkaagii waan gabay iyo dadaalkii aad noo soo samaysayba waan ogahay inaanad adigu jeclaysanayn inaad aragto wejigayga gar baanad u leedahay laakiin aabbaha ubadkaygu dhibaatadii iyo dhabarjabkii aan ku geystayna ilaahay waa igu abaalmariyey aniga wixii dunyo aan kaa tabcadayna way iga baaba'een badanaana waxay ku baxday caafimaadkaygii iyo wax kaloo laga khiyaamiyey aniga nafirkaygaba waan khaldanahay ubadkayga aabbahoodow xaqaagii ayaan ku ciyaaray weligii noloshaydana waxba adiga agtaada kamaan waayin waan ogahay inaan anigu khaldamay oo wanaaggii iyo dadaalkadii samaynaysayba aan xumaankuugu beddelay waxaan ballankuugu qaadayaa haddii aad fursad labaad i siiso xafidi doonana gurigayga iyo owlaaddeeda iyo ninkaygaba ii naxariiso ciilkan iyo culeyskan hayanayga dulqaad hadalkan miyadaa soo qortay midaan qaadanaya maaha waa gartaa adigu maba doonaya gabadha inaan wejigeeda arko haddaan arkana waaba dili lahaaba waxaynugu soo hadalqaadin gabadhani way khaldantay waynay garatay khaladkeedii wixii idinsoo kala dhex marayna waxay noo sheegtay inay jaarkeedii ay ka dembeeyeen iyagaana ka dhex shaqeeyey oo dumarnimaaba qaadayadii 11 sanaan wada noolayn waan ogahay waanan la yaabay aniga naftirkaygu waxaa adiga lagugu sameeyena wax loo dul qaadan kara xataa ma ahayn waanunu sheegayada waxaan ku yidhi arrinkan ma qaadan karo laakiin 2 hablood ayaad leedahay ma qiyaasi karo intee in leeg baad jeceshahay gabadhan hore waan u jeclaa laakiin iminka ma arki karayo hore waad u jecleed waxba kamaad hagran wax kastana waad siisay qof shisheeyaa hay khiyaamo laakiin iyada kamaan filanayn waayo waa in abtiday ma qiyaasi karaysaa qof dhiiggaaga markuu ku khiyaameeyo oo weliba aad kuugu dhow dareemi karaa laakiin xamaada aan yaro dhegaysanayada bal in yaraan dhegaysana bal wax ku hadasho u oggolow carruurtaada darteed may wax la dhegaysta maaha daadaa
najwa horta hadashee najwa la hadal bal waan ku jeclahay xamaada codkaaga kor u qaad najwa si fiican u maqli maynaye anigu weliba waxaan kaa raalli gelinayaa wax kastoon kugu sameeyey dadkan hortooda weliba fiicnaan lahaydaa inaynu dib isugu soo laabanno ubadkeenna dartood waa run anigu aad baan kuu jecelahay waa iska hadal waxani waan ku baryayaa walaale iska hadal waxani aniga iska kii cafi wixii qaladan kaa galay aadmi aan khaldamin ma jiraana waa runtaa ma jiro la hadal oo u sheeg oo haddaad doonto ku dheh hadalkaagani ma baqancinayo been baad ii sheegaysaa la hadal yada ku dheh haddaad doonto been baad ii sheegaysaa maanta anuu been sheegi maayo maanta ku rumaysan maayo inagu markaynu isjeclayn waan isrumaysan jirnay taasi mar hore ahayd waa laga soo gudbay may anigu weli waan ku jeclahay ima jecelid qofna qofuu jecel yahay waxaad samaysoo kale kuma sameeyo lagama yaabo maya aniga waxaad igu samaysay wax xun buu ahaa ilaahay qof waxaasoo kale kugu sameeya kumaba tuso aad baan uga xumahay hadal najwa ha aamusin soo ma doonaysid ninkan inaad iscafisaan uu ku cafiyey weliba la hadal haddaba ha aamusine aniga jaar xun baa i helay iyo shayddaan iyagaas u kay garabsaday iminkana jaarku wax kuu qabtaan hora jaarkii u tag waan ku baryayaa xamaada haddaan moodayo inaad halkan adigu joogto ood igu sugayso maban imaadeenba carruurta aynu dhalnay dartood aniga igu cafi walaal maya anigu ku cafin maayo